بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذن سلامي ولا لهك الصوماليادو ميل والبقى دافع عالم كجوكتان سلاك الدب الحمد لله الله بما هذا رسول انتهاي runtii waxa iga yaabiyay wuxuu yahay oo aan aad ula yaabo nin reerkiisii soo burburiyay oo reerkiisii mar hore soo baabiyay cagta soo mariyay iyo gabar iyaduna reerkeedii soo burburisay oo mar hore cagta soo marisay oo runtii markay dadka u sheekeynayaan ninkiina uu oraanayo dumarka waa in la wanaajiyo dumarka waa in muxuu ahaa waxa la yiraahdo loo naxariisto waa in wanaag loo sameeyo oo walaalo su'aalan ku weydiiye gabadhii shalay guriga ku joogtay ma ari lagu soo xareeyay bay ahayd soo iyaban wanaagan kaama rabin soo wanaagan iyo khayrkan iyo waxan aad sheegayso oo la gabdhaha hala wanaajiyo xaaskaga ina wanaajiso soo kooga kama ma baahnayn maxaad u wanaajin weyday arinta labaadna waa gabadha iyadana waxay leedahay waa in ragga loo tanaasulo waa in ragga loo naxariisto waa in ragga hadalkooda la adeeco oo walaalay adigana shalay ninkii aad banaanka bacdiisa u soo dhigtay oo aad cayrisay oo aad guriga ka saartay isagu nin ma ahayn miya masawir darbiga kuugu dhigan oo aad ka soo fujisay buu ahaa maxaa tanaasulkan aad sheegayso maxaad ugu tanaasuli weyday haddii muxuu ahaa hadalkan runkaa yahay hal ismaqlo maxaad ninkaaga u maqli weyday marka waxaan u malaynayaa dadka noocaas oo kale ah afkooda iyo dhagahooda isma maqlaan baan u malaynayaa ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ata'muruuna annaasa bilbirri wa tansawna anfusakum war dadka idinku ma khayr baad amraysaan nafihiinana waad hilmaamsan tihiin dadka ma khayr baad u sheegaysaan dadka ma khayr baad u faafinaysaan khayrka aad faafinaysaana nafihiina miyaad ka hilmaamsan tihiin inaad u sheegtaan marka waxaan oran lahaa dadka walaalayaalow bal horta khayrkan khayr Allah idin siiye aad dadka u sheegaysaan bal horta nafihiina ka soo bilaaba oo nafihiina u sheega oo nafihiina ku soo waaniya oo marka nafihiinu ay qaadato oo naftiinu ay sid runa u qaadato marka kadib dadka u soo gudbi laakiin adigoo naftaada wanaaga u sheegin dad baan u sheegayaa kaliya waxa kugu filan qofku yiraahdo walaalow horta adigu ku soo dhaqan intaas kugu filan marka waxaan leeyahay walaalahayow khayr Allah ina waafajiyo ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala isaga noo awoodee lamaanaha khayr iyo naxariis iyo jacaylki ilaahay sheegay ilaahay dhexdooda ka buuxiyo wallahu waliyo tawfiiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi